بسم الله الرحمن الرحيم سو dhawaada waxaa isweydiiyaa mataqaanaa qadka cas ama red line-ka dowladda hadda muqdisho joogto red line-ka waa kee red line-ka qadka aan la soo gudbi doonin oo ka xanaajin doono ummadda Soomaaliyeed ee ku kalifi doono ummadda Soomaaliyeed inay difaacdaan dhulkooda badooda cirkooda waa kee hadda adduunka dhan ay u dhigan tahay red line dunida dhan ay u dhigan tahay hadda Mareykankan aad joogno waa aragteen marka Shiinayska diyaaradihiisa aaga dhulka ay soo galaan oo xitaa aanan u dhaweyn xuduudka Mareykanka isla marka diyaaradaha la kiciyaa red line ka soo gudubteena la taagan yahay dunidan kale Kenya waa ka aragteen Kenya mar waxaa jirto ciidamadooda si qasab ah ee dhulkeena u soo galiyeen maxaa yeelay hadda xasuustiin waa taariikhdaas waxay dhaheen qadkii casaay ama red line ka la soo gudbay laba nin oo qawaarij al-shabaab ah la dalaq dhahday bas qawaarij maxaa Soomaaliya ka galay markaas ay ciidamo nagu soo daad gureen yaa xasuus taariikhdaas Ethiopian kana u jeedin sidoo kale ay sameeyeen marka annaga taangiyo dal dhan oo dawladda ay ku dhahayo oo daris taangiyadiisa xuduudaheena saas iskaga soo yaacayo ee la booradeena dul fadhiyaan dhulka ay haystaan xitaa heshiiskii badda ku qaadanayna ay dhaheen ilaa hadeertan laga ma bixin sidii ayuu warqadii uu saxiixay Abiy Ahmed xafiiskiis ee u taala kibir iyo santaag heer laga marayo marka walaalow cadawgaada waxa ka celiya waxay tahay cadawgaada inaad tustid inuu jiro red line qad cas war Syria maanta soo isku haysto Syria dhowr koox isku haysto Yahuudda Israa'iil hadda maantadan waxay sameysteen qad cas sameysteen fiirso Al Jazeera fiirso muuqaal ku xiga aad idinku faafahin doona qayb waxaa jirto Golan Heights-ka Syria xuduudkeeda ah oo taangiyada Israa'iil ay dalaq dhaheen waxay sameynayaan qad cas oo hal askari oo aan la garanayn hadduu soo galo madaxa laga tooganaa waa macna Lubnaan laftirkeeda oo dawlad taag daran ah ayagana qad cas sameystaan oo xuduudkaas ciidamadooda dhigteen qofka soo gudbo waa la dilaa intaas waxay ka tahay dalkeena difaacda ilaalsada ruush iyo Syria maxaa iska galay xitaa iskuma dhow laakiin wuxuu leeyahay meel militarigiis ay fadhiyaan jirto navy-ga gaar ahaan maraakiibtiisa badda ruushka asagana xalay qad cas u sameysay oo yiri nimayo waxa rabtiin sameysta Dimashq gala laakiin aagaas ninka soo galo madaxa ka tooganaa ciidamadiisa waliba kuwa Sam Shooter-ka meesha saaran yihiin maxaa ruush iyo Syria iska galay warqad ragnimo taas laga dhahaa in awood aan leedahay dhulka ku xariiqid waaga yaryareen ciyaalka aheen waxa jira qofka dhalinyarada markuu kula dagaalayo ama ciyaalka markay istagaalayno dhulka la xariiqi jiray dhankaan waa la xariiqa kan aabaha waay qofka isdagaali rabtiin hadduu xariiqinta aabaha uu lugta mariyo dhalinyarada hore way yaqaanaan isla markii feer aan ku bilaawi lahayd yaa xasuusto qad cagaaran waay leen waxbaa la xariiqaa aniga dowladeena ama Soomaaliya haddaan nahay maba qabnaba qad xariiqan oo xadgudub ah ma qabno Ethiopia waxay naga samaysatay way soo galeen badiya saxiixdeen gabdhiha la kufsaday waa aragtanaad hore idin shirgiriyay gabdho Soomaaliyeed aad u tiro badan oo amisom ahaan lagu kufsaday jirto ciidamo amisom aan nahay waa la iska kufsaday gabdhihii qaar uur loo yeelay ilmi dhaleen cid ka hadlaysa male dad xishoodaan nahay oo aamuso oo gabdhihii aamusi ayaa nahay waaya maanta maamul goboleed aysan joogin way yar tahay saasay u soo galaan saasay uga baxaan kuwa jaajuusiinta lama qiyaasi karaba tiradooda oo kumanaan waay marka ani ahaan waxaan taaganahay haddaa anigu ku hadlaya dhalinyarada afka dhalinyarada wixii qad la soo gudbi karay waa la soo gudbay oo maanta wax noo dhiman haba yareetay ma jirto haddii dowladeena ay sugayso ilaa villa Soomaaliya magaalada Muqdisho ee taangiyada Ethiopian villa Soomaaliya ay soo istaagaan hadda kaas qad cas u taqaaniin alloore meesha dowladnimo ma jirto marka walaalayaal meesha dowladnimo ma jirto madax waxa ku tahay oo wasaare ku tahay xildhibaanada maxay $6000 u qaadateen $6000 xildhibaanada maxay u qaadateen wasiirada $12000 maxay u qaadateen mudane ra'iisul wasaare $35000 bishii maxay u qaadataa mudane madaxweyne $45000 bishii maxay u qaadataa gudoomiye baarlamaano adigana $35000 bishii maxay u qaadataa maxay tahay shaqada ay qabateen oo intaas oo lacag ay u qaadateen oo caruurtiin iskuulada fanciest-ka ee dunida ay u dhigtaan waxa lacagtaas u qaadataan dalkaas inaad difaacdaan waa shaqo lagu diro waayo ummadda Soomaaliyeed shaqo ku dirsatay shaqada lagu dirsaday oo ahayd inaad qadiyada iyo ummadda Soomaaliyeed aad difaacdid hadda ka habsaantay aloor marka xaaraana cunoosa marka runta dil laga hadlo diiniyan xitaa da u hadalno lacag xaaraana cunoosa ummadda Soomaaliyeed xuduuda ma haystaan hadda waa arkayseen maamooyinka maamadan ilfiri qaylada iyo maxaa la jiray calacalka baxay marka dawladdu waxa ka rabnaa dawladdu waxa uga fadhinaa
hadal dhab ah oo sax ah iyo hoggaan sax ah uga fadhina anaga warqadahan telefishinka qaranka Soomaaliyeed la soo gamay habeen iyo maalin waa cambaareynayna leema ku jireenaa warqadaha fiiri iyagoo boqolaal ah waa soo print gareey meel iyala kulli waa wada cambaareen waa cambaareynayna Itoobiya soo gudubtay ma yeeleeno iyo waxaas ma soconayso meeshaan red line loo baahanyaa qad hal xariiqo madaxweyne oo soo hor istaag adoo raali ah waxaa dhahdaa xadka waa la soo gudbay laakiin xadkaas ayaa dowladda u degan oo haddii tallaabadaas kale ay qaado dowladda yani hadal rabnaa aniga haddii Etoobiyaanka hal hadday ka bixi waayaan tusaale ahaan waxaa rabnaa deadline inay qabatid hadday ka bixi weysiin muddo 2 isbuuc gudaheeda tallaabadaa qaadi lahayn noo sheeg mudane madaxweyne ani madaxweyne ma ihi wax aa ahay dowlad uma shaqeeyo shicib aa iska ahay gurigaanaa deganahay marka waxa aniga aa dhaho dhalinyaradu way dhegaysataa dhalinyaradiina hoggaanay rabtaa hoggaanka saxda ahaane aniga iima yaalee dowladdu u yaalaa dowladda ha hadasho dhalinyarada ha hoggaamiso wiilashaan Syria qabtay ninkii awoodda badnaay oo xitaa Etoobiyaanka awood badan meesha darba looga saaray diyaaradu ku cararay xitaa wuu qaxay dhalinyar yar ah oo ka caajisay ka daalay musuqa iyo dhibaatada socoto ayaa ku kacay mudane madaxweyne dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada dhalinyarada digsi karkaraayo ay maanta marayaan ee ha ku kalifina dhalinyaradaas inay soo jabsadaan ha ku kalifina wax qabta